وقدم وقت الكولات بحين وحنقدر نفقنا لغات وحيلتري لغلقاتيسا لحريرة مركا وتقوطاس ضد الجوالتري قلت اللغات أود ساردة شرعية فقديسا لبعضها يتري لما بهجة ضد هودا وحانا يقول كليين قود أهان أرجي راسات أرمي قود أهان أنت لين شرع سديسة يقول لقرأي وحا مهمة إلي قرأتي سجارينها سفار كيسة إلا دكتور يرفعنا مكي ريحيها ضد بهجة بلوكا إركا هذا حقدني سجود guud ahaan ayaa ka dhigay marka waa soo taabay guud ahaan giga ayaa ka dhigay qodobka sideedaad awoodda hay-adda farqada labaad waxaa lagu daray marka ay hesho ogolaansho maxkamadeed mar walba oo shaqo ay qabanayso hay-adda ay ka qabanayso geyga Soomaaliyeed ama muwaadin Soomaaliyeed ay dabadalka samaynayso waxaan ku darnay oo qodobkaas si qabla ugu muujinay ogolaansho maxkamadeed inay wadato oo qofkii asagoo aan kaga qabin loo fartigin in loo geeyo markuu wararkiisa leeyahay arrintaas ayaan ahmaayaan ugu sameeyay qodobka saddex iyo tobanaad arrimaha ka reeban agaasimaha guud iyo farqada xarafka D waxaa lagu daray guurtida hantida ma guurtida iyo guurtida marka hantida ay waxaa lagu soo qaaday arrintii labaad hantida ma guurtida haddana guurtida soo baxay hanti guurti iyo hanti joogta waa macnaha fahmaysa wadabilla badiyeen qodobka toddoba labaatanaad ee ka hadlaya xasaanadda magaca xasaanadda waa la bedelay waxaa laga dhigay qodobka labaatanaad ayuu u soo aroorsaday magaca qodobka wuxuu ahaa xasaanad xubnaha waxaa lagu bedelay mudnaan gaar ah askariga markuu shaqadiisa gudanayo wuxuu leeyahay mudnaan gaar ah wax sharciga ku socdaa in shaqadiisa laga istaago aad qori u soo qaadato iiga dhex gurigeeda mudnaan maaha marka askariga markuu shaqadiisa gudanayo mudnaan gaar oo lagu tixgeliyo ayuu aan u yeelnay marka xasanada meesha waa ka saarnay qodobka soddon iyo labaad iyo qodobka soddon iyo koowaad waxaan ka dhignay arrimaha ka reeban xubnaha hay-adda ayaan ka darnay waxyaalaha ka reeban hay-adda ayaan si qabli ugu muujinay qodobka afartan iyo toddobaad waxaa laga dhigay qodobka lix iyo afartanaad waa laga dhigay qodobada waa isjiraya qodobo badan baxay sidii kii toban iyo labaatan oo kale lix iyo labaatan uu soo bedelay qodobada waa guudaya marba haddii ay muxuu ahaay waa konton iyo laba qodob ayay ahaayeen waxaan ku soo aroorinaanay konton iyo kow qodob hal qodobaa meesha ka dhax marka qodobadii waa isku guuraya markii hore konton iyo qodobkii konton iyo laba ahaa konton iyo kow tagaaya qodobka afartan iyo lix dhaqaalaha hay-adda waxaan ka dhignay aan kusoo kordhinay hordhaca qodobkan waxaa lagu dhigay si waafaqsan sharciga maamulka maaliyadda ayaan kusoo darnay si waafaqsan marka hay-adda maxay leedahay miisaaniyay leedahay miisaaniyaddeeda waxay u isticmaalaysaa sidaad la socotiin madaxyaa jira wasaaradda maaliyadda madaxay leedahay si waafaqsan sharciga maaliyadda sharci waxaa jira oo baarlamaanka ayaa saxeeyey oo maaliyadda oo muxuu ahaa tilmaamaya sharciga maaliyadda leedahay sharcigaas qaabka uu dhigaayo way ku dhaqmaysaa ma sii dhaqmayso waa jeefkaan loola geliya anaga madaxayna anagaa iskala kuma dhaqmay si loola xisaabtamo hadhowta mudana gudoomiye qodobadaas intaan hadda la eg ayaan kasoo bedelay anaga inta badanna
ka hadlay qodobada aan ka bedelnay xildhibaanada waa soo jeedintii labadii maalmood labada xiriira ay kala qoranaayeen qoraaladiina sidii iyo magacyadiina xataa si qabla ayaan u gelgelinay waxyaabihii dadka qaar si toos ay u siiqeeyeen xildhibaanada qaarna waxaa waaye boolansi guud ay ka hadlayeen wixii boolansi guud ka hadlayay siday u hadlayeen aan u qaymayni rabitaankooda ayaan la doonnay sida sharciga ay u noqon sharci nuxurkiisa ay ka muuqato doodii xildhibaanada marka aad iyo aad